تبيه اسكقضا هي تعوضوا لما يساوي كعبيته الباجر مدوه عن لعبة أرك كري سنة كوبه الرئيس دحين بانه إنه إلا 4 مليون بان كسر daawadayaal hadda waxaanu ku suganahay Darigodle oo ka tirsan gobolka Saaxil barnaamijkayga deegaanka oo ku soo qaadano deegaanada bilicsan iyo kuwa ay saameeyeen isbedelka cimiladuna waxa uu ku wajahiyay laasad dacawo oo kamid ah deegaanada bilicsan ee Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saaxil halkan waa halka uu inooga bilaabmi doono barnaamijkeenu waxaanu koonfur baray uga carabnay Darigodle oo aan masaafo ahaan ka fogeyn la farug dhulkuna waa abaar aan indhaha u roonayn markan waaga ayaa noogu bariyay dhulka diwaankii hore oo aanu soo galnay goor habeenimo ah daawadayaal saaka waxa waagu noogu bariyay laasad dacawo oo ka tirsan gobolka Saaxil waa magaalo ku taala dhul siman oo sare oo ay dhan walba ka xigaan buuro cagaaran waqtigan xooluhu xerada ayay ku jiraan halka qaarkood ay دمشق مرة اللحظن كي سكول كي بوردن كهاي اللحظن كي وكل سنة هاي وحي كتوصي سايني دقمة قديمة تاي إسماعيل إيلا الدرر oo maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Xaji Yaasin ayaa xog kooban naga siinaya laasad dacawo iyo sida ay kula magac baxday degmada laasad dacawo oo degmo ballaaran magaalada Berbera ama gobolka Saaxil waxay u jirtaa 150 kiiloomitir ayay u jirtaa waa degmo qadiimi oo degmooyinkii hore oo halkan dugsigan aynu joogno waxa ka dhex dhisan dugsigii 60kii hoose dhexe ee wax lagu baran jiray oo arki doontaan dhismihiisu xagga dambe ka dhisan yahay beri dhaweydna oo dayactir ku sameeynay marka halka waxaad ku muujinaysaa in degmo qadiimiya ay tahay muddo dheer soo jirtay waa degmo xoolo daaqeen iyo beeraley labadaba isugu jirta xagga xoolo daaqeenka aad bay ugu wanaagsan tahay area garbadiir meesha leedo caana garbadiirininta guugan ma weydaba loogu magac daray ayaa u dhow xagan kale waa beeraleyga ayaa aad hodan ugu tahay oo boqolkiiba waxaan oran karnaa 80 waa beeraley inta ka soo hadhaana waa xoolo daaqeen waxay ka soo bilaantay oo magacan kula baxay laasas yar yar oo dhulka markii hore dadkuna way iska yaraa xilliyadii hore oday culi joog loo oran jiray Yaasin culi joog ayaa magaaladan aasaaskeeda ahaa inteeda badan marka laasas waa dooxideedu waa wada durdur bay u badan yihiin biyaheedu waa faarfaar marka hadii meesha faarfaar kana tawacadu way iskaga badan tahay oo biyihii iska qodan ayay dacwadu u imanaysaa oo ka cabaysa haddana talaaso dawaco laasku waa qeyrkeena la qodqodo mar kale waxaan u jaysanay dhanka buuraha iyarba haddii aanu soconay waxaanu jidka kula kulannay Maxamuud Ciise oo ku jira howlmaalmeedkiisii maalintaas abaar baan alago gaday abaar baan ugu dhacday dadkii waxa ay wataan wixii markii waxba ka iibsan waayeen oo baqteeyaanba imagada nimadeed ba ku wada leeyahay waqtigan adigoo abaar saxal u raacay ayuu ka soo doogay oo weli diiftii ayaa ka muuqata أنا ما كفريسة فريسة لا حبك أنا فريس هاي salaan iyo soo dhaweyn kadib waxaana dhex martay sheekadan beerta maxaa ka baxay ka soo baxay kan idinka soo gooyay idinka arkay intii loo leexad si fiican aad iyo aad inuu ku yaala sarac wax walba ku yaala cambihiiba ku yaala sidoo kale maxaa kale ku yaala laakiin bahal baa naga cuna dugaag waxaan u garan weynay oo tamaadadii cunayo saracii cunayo inaantay aanan suntooda haynin marka bahalkan wali ma idaan garan nooc yahay ma aragtay waxa nooc walba uu leeyahay marka sarac uu cunayaa waa wax imika soo baxay weeyaan
sanadkii ugu horreeyay 3 nin baan hayno ilaa 14 milyan baan ku soo saarnay si fiican wax ka dambeeyay oo nafla kamaan helin marka biyihii waa haysan laakiin nidaamkii uga faa'iideysan la biyo iyo kaydadkii iyo barkadii baa idinka dhiban ma barnaamij badan baa naga maqan ha in sunna la siiyo seedna la siiyo la shaqeeyo doonina bamamkii iyo waxa soo kale imaka mudooyin ugu dambeeyay abaaraha jiray abaaraha sidii ma saameeyay wayna saameeyay xoolaha naga dhameeyay haye saracna noo bixi waay haye sunna waan weyn awood was dhinta waqtiyadii hore iyo hadda xagga biyaha waxba iska bedelay ma ilaa intii hore meeshan bilownay biyaheedu dirow bay haayeen way fara badnaa marka hore way badnaay laakiin markii dambe way yaraadeen marka maxaa u sababeynaysaa in biyaha yaraanaya dooxii baa daad soo marin marka dooxii hadii daad soo mari waayo biyuhu meesha awood beerta halbowlaheedu waxa weeye biyaha hadii la waayana waxa ma kala soconaya markale waxaa noo bilaabmay safar lug ah oo ma jiro jid baabuur daawadayaal hadda waxaanu ka tegaynaa deegaankii beeralayda ahaa ee nalagu casuumay haddana waxaanu hore u koraynaa buurta dameer gowrac oo naloo sheegay inay leedahay biyo dhacyo iyo waxyaabo kale mar haddaba aynu hore u soconno ilaa iyo halka ay naloo sheegay dameer gowrac ee biyuhu ka soo dhacaya daawadayaal ilaa 20 daqiiqo oo soo koraynay buurta dameer gowrac waxaanu soo gaarnay dooxa loogu magac daray dooxa dameer gowrac waa dooxan haddaba dooxan iyo magaca waxyaabaha loogu bixiyeyna qaar ka mid ah dadka deegaanka oo nu weydiinayna waxay yiraahdeen berigii hore dee wadanka beeralayda iyo waxaan ma jirin xoolo dhaqatuha haye ceel baa ahaan jiray haye loda laga waraabi jiray haye marka sida dameer gowrac magacana wuxuu kula baxay bahal calaacun la yiraahdo haye ayaa biyaha joogtay haye calaacushu waa wax nooceeya calaacushu waa bahla yaryar weeyaan marka xoolo liqaan halkan ka baxda dhiigga ka laacda waa xawayaan yaro sida waxyaabahan dulinka oo kale haye marka noocaas dameer gowrac kula baxay waana doox taariikhiyan oo halka waxa deganaan jirtay aslamti haye halka deganaan jirtay halka yara sare deganaan jirtay haye marka waa doox isagu waa dooxa taariikhiyan ka weeyaan marka dee warno biyina way leedahay waana meel wanaagsan oo noqon karta saldhig ay ku qarsooni kareen sabaha soo doortay way halkan waqtiyada hore si ahaan jirtay iyo hadda ma isagu baa waxba iska bedelay waxba iska bedelay haye markii hore aag may lahayn qabsabadahan kuma jirin kaabadana kuma soo xidhnay biyo halkaas ka shuban jireen halkan ceel bay ahaan jirtay intan looda ka cabi jirtay wadadaas ladu soo mari jirtay halka bay ma jirtay halka baa laga waraabi jiray halkana ceel hayd halkan baa ceel hayd haye deetana ceelkii wixii wadankii waa kan isbedelo waa kan dee ay geeda ka baxeen meeshii kaabad lagu soo xidhay dee waxa soo gashay betelayni nolol beeralaydi ayaa soo gashay ayaa meeshii soo gashay haye marka waxa ka baxday noloshii loda iyo xoolo dhaqatada ayaa ka baxday xooluhu ay ka cabi jireen marka xoolihii halkan ka cabi jiray ka laga waraabi jiray iminka beertayni ka nimi waa kuwa ka caba sax halka salka waraabi biyihii baa fudaysana daadajisay biyihii baa la daadajiyay haye marka sidaa wey marka biyaha in la daadajiyo oo sidan oo kale imika halkan aynu eegno halkan biyahan imika qasabadan halkan ka inooga muuqataa qasabadan xagee biyo geynaysaa qasabadan waxay geynaysaa beertii aynu joognay haye beertii waa kuwan ku farxalanay weeyaan marka de waa ilaa kilomitirka dheeraad sax marka nidaamkan biyaha la qaadayo la geynayo hoos loo daadajinayo yaa keenay waxa keenay nin deegaankaaba keenay oo markii hore halkan beer yar ka samaystay haye hindisaha beertan halkan buu ninka iibsaday deetana wuu beeray qasabadan buu xidhiidhiyey markii dambe haddana wuxuu arkay biyihii inay daafta ku dhaadhacayaan haye banaanku haddana iibsado u dhaadhacay marka ninkaasi ayaa keenay fikradda marka dee biyihii dadku imanka halkaasi ka wada cabaan dadku halkaas dad iyo xoolo laga wada cabaa imanka runtii ninkaasi waxay muujinaysaa fikrad wanaagsan uu keenay oo biyihii intaa masaafada loo soo soconayay buuraha waxa uu daadajiyay dhulka hoose aynu hadda ka nimaadnay oo ilaa kilomitirka dheeraad ka soo soconay marka qasabadahan ayaa biyaha qaadaya biyo xidh baa loo sameeyey ilaa 1 mitir in gaadhaysa ayaan banaanka soo rogay biyo tani waa sheekada Mubaarak oo ah wiil dhalinyaro ah kaasoo la yimi fikrad wax ka bedeshay nolosha deegaankan
waxaa igu dhaliyey meesha waxaan doonayay inaan beer ka sameeyo markaa beertii buurta dhexdeeda marka hore ka qoday waad soo aragteen koley kabacdi way igu adkaato meeshii bees weyn baan waayo aan wax ku beero kabacdi baan tuubooyinkan deedna aan soo raadiyay aan bannaanka inaan soo rogay ilaa 1 mitir in gaadhaysa ayaan bannaanka soo rogay biyo markaa halkaasoo bannaan oo dee aan wax ku beeri karo dhul beeslan ah ayaan dadka deegaanka dhulkan yaal oo dhamina bartaa qasabada yar bay ka cabaan wala dhaqatada walaageel walaalo wala adi wax alla cid soo degta dhulkaas oo dhan qasabada yar bay ka cabtaa halka ay ka cabtaayo waxaan ku xagaa iyo dayr ka cabtaa marka meelaha mabareeg bay ka qodan wax ay biyaha maxaa xoolaha kaga waraabisa waxaan kaga waraabnaa suxnida loo dhigaa weelba loo dhigaa dhulka waa dhul buura oo aad waliba u kala sareeya sidee bay aad uga baxday hawshaasi aad tuubooyinka u soo dhaxmaray may hawshaas wallahi waa hawl adag bay ahayd markii aan meesha hadda hawl iga dhacday xagga sare qoday meesha aad kaatay waxba iga soo bixi waayeen ayaan da kharash ka galay inaan 1 mitir oo toban baad doono oo aan deetan banaanka kana biyo aan hadda kharash saa ugu baxay intee lag bay ku qaatay ilaa 3 bilood baan inaan hawsha seeskeeda hore aan ku jiro ay ugu qaatay qasabadii aad halkaas soo dhigtay maxay isleedahay deegaanka way u tareen wax badan bay u tareeno reermigii intaas oo dhan oo la magaalada ilaa iyo inta halka aad tagteen inta waxaasta wixii reermi yaala buurta ka bixi jeemeriga hore markay biyo doonayaan halka ma ka dhaansadaan marka banaanka ayaan u keenay banaankaas ka dhaansadaan xoolaha sidoo kale ka laga waraabiya adiga ka beer ahaantaadii ka waran biyo intee lag baashay wallahi biyo wanaagsan oo aan mashiinna lahayn qarashna kalena aan ku baxayn tuubo ka galay mooyaan ayaan ka helaa ku beerno biyahani iyagoo halkay ka yimaadaan Said biyahana waxa ka imanayaan halka sare weyn tagi doonaa halka sare ka soo baxayaan marka waxa weeyaan doox beerta buurtan dabadeeda doox mara ilka soo baydhan weeyaan dooxay marka biyahani ka soo baydhaan oo buuray ka soo dhex baxaan buurtan bay ka soo dhex baxaan daawadayaal bal waxaynu tagi doonaa halkay biyahan durdurka ilaa la saddex ka cabaan halkay ka soo baxayaan markaasi bal hore ayaynu ku socon doonaa